markii hore waxaan ka shaqaynayay arrimaha bulshada waxaa dabcan joogay laba hay-ad oo kala duwan baa muddo ilaa 12 sano la shaqaynayay ka hor waxaan la shaqayn jiray dowladda hoose oo aan xoghaye ilaa xildhibaan golaha deegaanka aan ka mid noqday kuwii ugu horreeyay Boosaaso dabcan marka xogaa waaye aragnimo xaggii shaqadii dowladdii xaggii bulshada u adeegideedii waan lahaa siyaasadda dabcan kuma jirin waa markii ugu horreysay sida uu tiri oo aan si toos ah u soo galay oo wasiir noqday laakiin Soomaalidu waa aragtay banaanka way ku xoogan yihiin oo kaga faaloodaano aad baan u xiisayn jiray ilaa shirkii carta baan bilaabay inaan aad ula socdo doodaha iyo dhageysto ururiyo analysis aan samayn karo oo kulli marka dabcan fursad fiican bay ahayd inaan dhalinyaraduna ay ka mid noqoto siyaasadda soo gasho waana uga mahadcelinaynaa madaxweynaha dowladda Puntland fursadda uu guud ahaan dhalinyarada reer Puntland siiyay dhalinyarada ugu badneed baa maanta dowladda ku jirta oo ka mid ah dhinacyadeeda kala duwan dowladda markaan leeyahay waa saddexdii gole ee dowladdiiba way ku wada jiraan oo xukuumadda kaliya maaha wata xafiiska shaqadiisa marka maxaad ku tilmaami lahayd ma mid adag baa in wasiir la noqdo wasiirnimo lagu shaqeeyo mise waa shaqo caadi oo qof walba qaban karo wallahi waxay u baahan tahay wayna adag tahay wayna fududahay waxay u baahan tahay way aragnimada shaqada waxay u baahan tahay wasiirnimadu dabcan maahan shaqo daily ah oo la qabanayo kaliya maaha waa in siyaasadii laga shaqeeyo qofka wasiirka waxa ugu horeeya oo laga rabo waa inuu siyaasadii ka shaqeeyo tan labaad oo looga baahan yahay waa inuu shuruucdii xeerarkii istaraatiijiyadii wixii oo dhan uu dib u eegid ku samayn karo wuxuu meesha ugu yimi wixii ka dhiman kuwa cusub haday jiraan oo la curinayo sababtoo shaqada waxa ka horeysa sharciga lagu ilaalin lahaa haddii wada la dhiso oo wadada aysan jirin sharci hagaya dadkina ay yaqaanaan waxay imaanaysaa inay biyo wasakh isaga shubaan inay jajabiyaan sida maalin kasta dhacda haddii nin raba inuu kalluumaysto aan xeeroosaadkii kalluumaysiga loo akhrin waxay imaanaysaa inuu wuxuu doono sameeyo badii olyadii ku daadin karo bacihii ku tuuri karo suu doono u kalluumaysan karo waxa nolosheena qaabeynaya oo hagaya waa shuruuc iyo xeerar shaqada labaad oo looga baahan yahay wasiirka tan koowaad waa siyaasadda waa shuruucdii xeerarkii inuu aad tii saddexaadna waa waxqabadkii inuu markaas uu gaaro meelihii loogu talagalay uu qorsheeyo dabcan iyo waxyaabo kaloo badan laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waa intaa wasiir ahaan maxaad ku faani kartaa baad is leedahay sanadkaas oo kuu qabso wallahi alxamdulilah xukuumad ahaan aad baa loo dadaalay ka wasaarad ahaan markii aan meeshan nimi dabcan dadkii naga horreeyay waa soo shaqeeyeen sidee halkan uga sii qaadi kartaan oo kor ugu sii wadi kartaan bay ahayd ujeedada ugu weyn tusaale yar baan ku siinayaa doomo iyo maraakiib inta sharci darrada ma aha qaarkood bay wasaaraddu shatiyo siisaa sifa sharciya way kalluumaystaan shati baa la siiyey xogaa lacaga laga qaaday way kalluumaystaan way tagaan tagidda ay tagayaan kalluunka ay qaadanayaan waa kheyraadkaadii oo la dhoofinayo adiguna lacagta dhoofka kama qaadid barkaj adduunka waxay dhahaan wixii uu soo qabtay baa laga qaadaa lagama qaadin bar kilogram lagama qaadin kiiladii dabcan isla markii baan waxaan sameynay bal waxa kalifa iyo kulli mid waa lagu sababeyn karaayo takada Boosaaso kaliya baan leenahay oo aad u yar oo maciishadii kale iyo saf ugu jirto oo waxa la oran karay takaday soo maraan oo kalluumaysi u gaaray ma jirin waa sababta si degdeg aan marsooyin ugu raadinay aadna uga hadalno maalgashiga u doonaynay oo aad baan u gadnay maanta maalgashigii oo aragtidii madaxweynaha aheedo si xoog leh safarro dhaadheer waa taa galnay weli maysan bilaaban laakiin waa diyaar inuu maalgashi bilowdo habka ugu fiican oo habkaas loo soo yareyn karo ama loo joojin karana marsooyinkii iyo takadihii dhismahooda ka sokow waa in maalgashi la helo maalgashigaas wuxuu galayaa booska dhoofka oo kale hantidaadii la iska dhoofinayo kheyraadkaada inta la qaato la dhoofinayo waxba aan kugu soo noqonayn shirkadihii ama dadkii raba inay kalluumaystaan waa inay sameeyaan maalgashi aad u ballaaran oo xeebihii deegaanadii ku horumarayaan iskaashatooyinkii oo kale
waa waxaan dabcan ku faani karno muddo 30 sano iyo ka badan ma jirin iskaashato dadku gaargaar bay u ganacsanayeen in marka inta kalluumaysatadii la diiwaan geliyo deegaan ahaan la isku soo ururiyo tababar yar aan siino aan hagno xeer hoosaad u diyaarino oo ay iyagu isdoortaan intaa kaliya ugamaynaan harin caadi ahaan markii maamul iyo wax la sameynayo waxa iska culture ahaan jiray in dadku automatic iska aaminaan hay-ado inay wax ka helaan oo ay ku tiirsanan noqdaan laakiin maya iskaashatooyinka waxaan u diyaarinay inay iyaga isku tiirsanaan karaan tusaale kooban Puntland TV goobjoog bay ahayd iskaashatada degmada El oo kale 61 qof bay ahaayeen intii matalaysay guud ahaan iyaga is doortay lacag min $250 ay isku darsadeen akoon bay furteen xeeroosaad iyo aan ka caawinay laba talaagad baan siinay oo min 20 tan ah oo min xagga barafka iyo qaboojiyaaliga ah min 6 tan bay ahaayeen labadoodu kalluun bay marka lacagtii $15,200 bay noqotay kalluun bay dadkii ka soo iibsadeen shidaal iyo wixii kale ka dhigteen qarash yar kalluunkii bay garowga hadda u iib keenaan waa wada faa'iido wadaag marka in awal kaligood baa ganacsan jiray -20 bay ahayd talaagada qaboojinteedu -40 bay dalbadeen oo kalluunka isla markii -40 buu rabaa isla markii waan u dalabnay waa u geynay talaagadii saddexaad oo -40 ah oo awood u siinaysa inay kalluunka saasaa marka annagina usii daba joogeenaayo usii caawinaynaa waa waxyaabaha aan ku faani karno in dadkii kalluumaysatadii horumarkooda iyo laga shaqeeyo